Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maalin wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena Fasoon. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Muuqaalkeena maanta waxa uu hadli doonaa ahamiyadda uu leeyahay waqtiga iyo sidii looga faa'iideysan karo. Waxaan kula wadaagi doonaa qiso cajiib ah oo aad ka heli doonto. Waxaan ka codsanayaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaalka subscribe, like, share iyo comment. Haddii aad tahay saaxiibada hore noo joogin waxaan ka codsanayaa inaad janaalka noo qurxisi oo like, share iyo comment. Mahadsanidin. Aan gudagalna qisadayna maanta. Beri baa Tuuleer waxaa ku noolaa wiil lagu magacaabo Rohan. Rohan waxa uu caan ku ahaa caajisnimada iyo hami la'aan, wuxuuna caado ka dhigtay inuu waqtigiisa dhumiyo howlaha muhiimka ahna dib u dhigto mar walba. Rohan marna ma dhageysan jirin talooyinka joogtada ee waalidkiis iyo saaxiibadiis oo ahayd inuu waqtigiisa ka faa'iideysto, waayo marna uma arkin waqtiga mid muhiim ah. Subaxyada ka mid ah ayaa tuuladii uu Rohan ku noolaa waxaa soo gaaray oday caqli badan oo lagu magacaabo Master Gupta. Master Gupta waxa uu caan ku ahaa xikmad iyo karti uu ku xalliyo dhibaatooyinka dadka. Isla markiiba Rohan waxa uu maqlay imaatinka Master Gupta, xiisihii ayaa meesha ugu sarreysay gaartay. Waxa uuna go'aansaday inuu odayga hanuuniyo. Rohan ayaa u soo dhowaaday Master Gupta oo fadhiya geed weyn oo bannaan ah. Isaga oo si xushmad leh ayuu ku yidhi, Sayidow, waxaa la ii sheegay inaad xikmad weyn leedahay. Fadlan miigu hagi kartaa sida aan nolosheeda ugu faa'iideysan lahaa. Master Gupta wuu dhoola caddeeyay oo madaxa ruxay. Isaga oo fahmay halganka ninkan dhalinyarada ah, waxa uu boorsadiisii kala soo baxay galaas saacad ah oo uu u dhiibay Rohan. Muraayadda saacadda waxay astaan u tahay waqtiga, ayuu yidhi. Hadhuudh kasta oo ciid ah waxa uu u taagan yahay daqiiqad qaali ah oo noloshaada ah. Rohan waxa uu gacmaha ku qabtay muraayaddii, isaga oo dareemay culayska ay leedahay. Hadda Master Gupta oo sii watay hadalkiisii, waxaan rabaa inaad qiyaasto in hadhuudh kasta oo ciid ah oo ku dhacaysa muraayadda saacadduna ay tahay fursadda khasaartay. Mar kasta oo aad dib u dhigato ama waqtiga lumiso, hadhuudhku wuu simbiriraa weligiis. Rohan oo garwaaqsaday culayska ficiladiisa ayaa si feejigan u dhageystay markii uu Master Gupta sii watay hadalkiisii. Waqtigu waa hadiyad qaali ah wiilkaygiiyow. Cidna ma sugto ilbiriqsi kasta oo dhaafa. Waa ilbiriqsi ma soo celin kartid. Haddii aad ku sii wadato luminta, waxaad soo toosi doontaa maalin ay kaa buuxdo qoomamo. Isaga oo dareemay dareen degdeg ah, Rohan ayaa weydiiyey, laakiin sidee baan ku bedeli karaa? Sideen u qiimeyn karaa waqtiga oo aan uga faa'iideysan karaa? Master Gupta ayaa si diiran u dhoola caddeeyay. Waxayna ku bilaabataa tallaabooyin yaryar, ayuu yidhi. Ku bilow inaad dejiso yoolka oo kala hormari howlahaaga. U kala qaybi qaybo la maareyn karo oo diiradda saar inaad mid kasta dhammaystirto. Bara inaad si hufan u maamusho waqtigaaga. Xusuusnow, guushu waxa ay timaadaa kuwa fahma qiimaha waqtiga. Rohan waxa uu qaatay taladii odayga oo uu go'aansaday inuu wax ka beddelo hab-dhaqankiisa. Waxa uu ku bilaabay habeynta hawl maalmeedkiisii oo dejiyay waqti gaar ah oo howlo kala duwan lagu qabto. Waxa uu meesha ka saaray waxyaabaha mashquuliya, waxa uuna diiradda saaray keliya hawsha uu hayo. Si tartiib tartiib ah, Rohan waxa uu dareemay isbeddel wanaagsan oo noloshiisa ah. Maalmuhu waxay isku beddeleen toddobaadyo, toddobaadyaduna waxay noqdeen bilo. Dadaalka cusub ee Rohan iyo go'aankiisii ayaa miro dhalay. Waxa uu ku guuleystay howlo uu sanado badan ka fadhiyay. Hamigiisii ayuu dabagalay oo daaha ka qaaday hibo qarsoon. Dadka tuulada ayaa la yaabay isbeddelka cajiibka ah ee ay ku arkeen Rohan. Waqti kadib, Rohan waxa uu xaqiiqsaday in awoodda dhabta ee waqtiga aysan ku jirin oo keliya fulinta howlaha ah, laakiin kobcinta xiriirka. Waxa uu la qaatay waqtiga fiican qoyskiisa iyo asxaabtiisii, isagoo u mahadcelinaya daqiiqadaha ay wadaagaan. Waxa uu fahmay in waqtigu uu yahay kheyraad xadidan. Ilbiriqsi kasta oo uu la joogo dadka la jecel yahayna uu ahaa hanti qaali ah. Sanad ayaa ka soo wareegatay. Rohan wuu duqoobay. Tuuladiisii waxa ay ku maamuustay waxqabadkiisii cajiibka iyo sida xigmadda leh oo uu waqtiga uga faa'iideystay. Jiilka soo koraya ayuu safarkiisii la wadaagay, isaga oo ku booriyay inay qadariyaan waqti kasta oo saacadda ah, kana faa'iideystaan noloshooda. Sheekada Rohan ayaa aad iyo aad ugu fiday, taasoo u dhiirigelinaysa shakhsiyaad aan tiro lahayn inay dib u qiimeeyaan xidhiidhkooda waqtiga. Dadku waxa ay bilaabeen inay fahmaan in waqtiga aanu lahayn badeeco oo keliya, balse uu yahay hadiyad qaali ah oo u baahan in la qadariyo. Sidaas darteed, tuuladu waxa ay ku horumartay xikmadda Master Gupta iyo nolosha Rohan ee isbeddeshay, iyada oo qof walba xusuusanayo muhiimadda waqtiga iyo awoodda uu leeyahay in ay ka qayb qaataan. Qisadan marka muhiimadda ay leedahay ujeedkeeda ayaa ah in qof walba loo baahan yahay inuu waqtigiisa ugu faa'iideysto sida ugu muhiimsan, una u habaysto howlihiisa ama hadafkiisa.
waayo qofka haddii uu maanta dhan 100 mashruuc ama 20 ama 10 hadaf oo isku furo awood uma yeelanayo inuu midba dhameeyo balse markii hadafkaaga aad jebisay oo qayb u jebisay midba mar ayaa ka howlgalaysa waqti ayaa u qabanaysa xilli hebel ayaa bilaabaa xilli hebel ayaa dhameynaya sidaas ayaa sida waqti ugu fiican oo looga faa'iideysto mahadsanidin